geesta kalena qoyska Mukhtaar Robow ayaa shaaciyeen waxa ka run ah xogta ku jirtay warqadii ka soo baxday NISA halka taliyaha ciidamada NISA Yaasiin Fareyna uu sheegay inaysan jirin oo wax ku kalifaya ka been sheegida xaaladda Robow. ehelada Mukhtaar Robow Cali Aw Mansuur ayaa ku gacan seereen xog ku jirtay warqadda ay soo saartay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya oo ku saabsaneed xaaladda wadaadkaasi. warqadaasi ayaa taliyaha NISA Yaasiin Farey wuxuu ku sheegay in Robow uu nabad qabo caafimaadkiisuna wanaagsan yahay xaaskiisa iyo cidii kale ee uu dalbadana ay booqdaan sidoo kalena uu waxbarasho jaamacadeed ku jiro amnigiisana ay gacanta ku hayaan. hase yeeshee Ibraahim Robow Cali oo ay walaalayihiin Mukhtaar oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in warqadda ka soo baxday hay'adda NISA ay ku jirtay been abuur weyn. Ibraahim ayaa sheegay in muddo 3 sannadood aysan indhaha saarin walaalkooda cid booqatana aynan jirin caafimaadkiisana ay ka walwalsan yihiin. January 2019 ayaa aniga iyo xildhibaanana loo ogolaaday inaan soo aragno markaasna wuxuu ku xirnaa xarunta hay'adda nabad sugidda qaranka ee Habar Khadiijo wixii waqtigaasi ka dambeeyay maalin kasta oo booqo isdhaho waa la iga hor istaagayay ayuu yiri Ibraahim ayaa xusay inay ogaadeen in Mukhtaar Robow nool yahay markii uu bishii Oktoobar ee sanadkan wareysi siiyay warbaahinta VOA-da wuxuuna xusay in waqtigaasi ay codkiisa ka dareemeen in xaaladiisa caafimaad aysan fiicneen. Robow isagaa sheegay markii uu VOA-da la hadlayay in loo ogoleen in xaasaskiisa u yimaadaan sidoo kalena loo diiday waxbarasho. xaasaskiisa bannaanka ayay joogaan marka aniga ma ogi haddii NISA ay xaas kale ku dareen muddadii 3 sano ahayd ee aan laanahay ayuu sii raaciyay hadalkiisa. dhinaca kale kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA gaashaanle sare Yaasiin Farey ayaa beeniyay hadal ee ehelada Mukhtaar Robow ku sheegeen in warbixinta uu ka soo saaray xaaladiisa ay tahay mid aan sax ahayn. Yaasiin Farey oo wareysi siinaya VOA-da ayaa sheegay in Mukhtaar Robow uu ku sugan yahay guri ku dhex yaala xarunta NISA amnigiisana uu sugan yahay isagoona intaas ku daray in mas'uuliyadda ugu badan ee NISA ay tahay in isaga ay ilaaliyaan oo uu sheegay noloshiisa iyo amnigiisa ay u hayaan sidii ay ku sheegeen warqadii uu soo saaray wuxuuna intaas ku daray inaysan jirin wax ku kalifaya in ay been abuuraan waxyaabo aan jirin. Yaasiin Farey ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin caafimaad daro ama culays gaar ah oo haysta Mukhtaar Robow. isagoo ka hadlaya kuwa ay yihiin shuruudaha aanu buuxin Mukhtaar Robow waxa uu gaashaanle sare Yaasiin Farey sheegay in haddii qofka la wanaajiyo aysan ka dhignayn inuu shuruudaha uu wada buuxiyay. wuxuu intaas ku daray inaysan hadda Mukhtaar Robow aysan u haynin arrimo siyaasadeed balse loo hayo amnigiisa iyo ilaalinta amniga dadweynaha waa sidoo hadalku u dhigay. waxa kale oo uu sheegay gaashaanle sare Yaasiin Farey in Mukhtaar Robow oo la sii daayo ay ku xiran tahay isaga iyo dowladda guud waa sidoo hadalku u dhigay. warqadii shalay ka soo baxday NISA ayaa waxa ay jawaab u ahayd amar uu wasiirka amniga Soomaaliya ku faray in ay xaaladda Mukhtaar Robow muddo 48 saacadood gudahooda ay warbixin faahfaahsan kaga soo siiso hay'addu. warqadaas ayaa lagu yiri Mukhtaar Robow noloshiisa waxa bil walba NISA ay ku bixisaa $7,000 si loo maareeyo noloshiisa iyo midka qoyskiisa maadaama uu xubin ka noqday Al-Shabaab isla markaasna uusan buuxin shuruudaha soo dhiibaha loo dejiyay amnigiisana waxa waajib uu ka saaray NISA ayaa lagu yiri warqadaasi. waxaa kaloo warqadaas lagu sheegay in qoyskiisa ay si joogto ah u soo booqdaan isla markaasna uu leeyahay dhakhtar si joogto ah ula socda xaaladiisa caafimaad isagoona sidoo kale ku jira waxbarashada heerka 2 ee master degree. hase yeeshee warkaasi waxaaba been abuur ku tilmaamay meeshana ka saaray qoyska Mukhtaar Robow oo tilmaamayaan inaysan muddo 3 sano indhaba saarin.